ku soo dhawaada dhageystayaal ilahantiinba qaybtii labaad ee sheekadii la magac baxday muuqaagii badashay maxaad baadigoobe sheekadana waxaa qoray halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Jamaal Amiin dad masugtay midabkaagii murxisay jirkaagii ruuxaad muxubba u qabtay maalmo ismoogeedeen haddoo muuqaay garan waaye waa musiibo adduunye maxaad samaynaysaa mulki waxay bilowday isla hadal waayo waxay la yaabtay sida fudud ee arrinkeedu oo ku dhicisoobay sababtu waxay tahay markii ay isqurxiday ay hablaha magaalada dhinac ka gashay ruuxii ay jecleed misane waa uu iloobay allah ya anigoo islahay isqurxi ishabay beebigaaga ha ku jeclaada ama saaxiibkaaga ha kugu jeclaada saa isku qurxisay oo haddana uu leeyahay sidaad horaanba kugu rabaa wallaahi waa yaab ya talaa iga jaha wareersanaan ku dhaha deertaan ya saa wax yeelaa inaa deertaan aan fikiro waay si inaa wax yeela waay si aan ku soo jiito ninkaan mar kale laakiin saan yeelaa waa fududah saan isku madoobeen laa falankeedaan galaa garaash baan ku noqdee danka kale inankii Jamaal ahaay dhankiisa wuxuu la yaabay sida inantu ay isku bedeshay ma jecleen hablaha iscadeeyo hase ahaatee wuxuu aad iyo aad u jeclaay midabka eebba u dhaliyay ee madow inanta islahay aleelee way ka duwantaa kuwaas haddii ayaga la mid noqotay xaajiduna isku bedeshay halkaasi wuxuu ka qaaday qudhiisa fajaci ama kaag asagoo isla hadlayana wuxuu yiri maya mulki maahayn ee mid kale aheedaa u malaynaa suurtagal ma ahan midabkeedii aawe wax lala yaabo waaye yaab ayay igu tahay arrinkani ma aqaano waxaan sameeyo ma inays caddeedaa ayaan mooday inaan ku jeclaan doono socodka dhamacadee degenida tallaabada miiska lagu daray lafyaha la daawado dadku waxay yidhaahdaan maydaadiciin daawsaamudiin
waxay xaaji murugsanaato maalmo kadib waxaa la iskaga hor yimid dariiqa. maxaa la isdhaafsaday talo waayaabe maxay is oran doonaan. mulki oo hadalka ku bilowday salaan dabacsan ayaa waxay tiri jamaal assalaamu calaykum. wacalaykum salaam walaale. ii waran see tahay abuu? fiican ladnaan alxamdulilaah. xaalkaaga adiga? aniga waa kuu fiicanahay maasha allah. ayada xaggaaga hadde maxaa iskaa bedelay? run ahaantii waxaan qaadan waayey mulki midabkan ku ogaayay in ay iska beddeshay. run ahaantii midabaysan u dhalan ay samaysatay. waa wax ani iiga daadegi waaye, waayo waxaad ahayd gabar deggan, dabeecad iyo dulqaad eebba ku maneeyey. dareenkii aan shalay kuu qabay waxa iska beddelo walaaleey. waxa weeye maadaama aa muuqaaga beddeshay, anigana waxay la noqotay in aad gebi ahaantayba iska kii beddeshay. abowadaas ka dhaadhiciiso maaha. aniga waxaan isdhahay isqurxi ku soo jiida wiilkan, adigana waxa ay leedahay waa isbedeshay. waaba yaabanahay soo maaha aniga. maya abaayo miihi aniga dhalinta xiisaydo muuqaalka cad, waayo ma jecli inantaan aan jecelahay inay micnaha diirkeeda ay qaado ay u ekaato carsaanya badeed. hadda xaan sameynaa waayahay talefaro way ka baxday. aniga waan isqurxiyey. hadda adiga saan igu rabin hataa dad kale buuxaan oo i raba, laakiin adiga dooqaaga noqday midabada madow. doqonay mugdiya madow aa la hore muu maqlin miyaadi? maya been ayaa lagaa dhaadhiciyey. ma ahan midabkii eebba ku siiyey inaad gebi ahaanba meesha ka saarta ma ahan walaal. waayo maantay saa u eg tahay run ahaantii dad kugu jeclaanaya way jiraan, laakiin aniga mihi dadkaas. taasna laabtaada ku qor adiga. hadda maxaa talaa waayahay? aniga waa ogtahay inaa adiga aad loof kuugu ahay. cadaanteeda iyo quruxdeedana aniga aan isdhahay wiilkaaneet wuu kugu rabaan doonaa, maadaama hadda midabka madow aa xiisaysid. maxaan sameeyaa waayahay? garan maayo aniga waxaad micnaha aad samaynaydo. aniga midabkan gebi ahaantiisba aniga ma jecli, mana kugu raacayey, lagamana yaabo inaad dib ii yeesho. wallaahi inaan ku helaa jirta ani aabba ismadoobeeye oo leeba aan soo mariyo garaashba aan tago. aniga saan kugu heli lahaa falankeeda ku jira ogow. kabsicodka damacdige keenida tallaabada miisaanka lagu daray lafyaha la daawado dadku waxay yidhaahdaan dhegaystayaal intaas haynoo joogto qaybtii labaad ee sheekadii la magac baxday muuqaagii badashaye maxaad baadigoobe. sheekadani waxaa qoray halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Jamaal Amiin. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo. dadku waxay yidhaahdaan maydaan